بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedi afraxo idin socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawad doontaan waxa kamid ah waxa ay isku hayaan Siciid Dani iyo Karaash oo banaanka la keenay arin aan ahayn midda aad moodayso ayaad wadanka ku daawad doontaan ra'iisul wasaare Khayre oo kala cadeeyay arin ay dad badan ka taagan tahay Ruushka iyo Shiinaha oo isugu tagay Turkiga qorshe muhiim ah oo ay ka hortaagan yihiin Soomaaliya iyo Qatar oo sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan xiriirkooda kooxda arxanka daran ee shabaab oo weerar qasaare geystay ka fuliyay gudaha dalka Kenya taliska ciidanka xooga dalka oo sheegay in la baarayo dhacdadii tuulada Gololey iyo wararkii ugu dambeeyay ee dilka dhalinyarada Gololey iyo arrimo ku soo kordhay ayaad wadanka ku daawad doontaan wuxuu igu dhex toogtay musqusha ninkii fulood jilibka ku dilay oo horay u dili gaaray nin kale oo madow ah iyo Trump oo seexay amar ka dhan ah shirkadaha baraha bulshada qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka ku daawad doontaan waa 29 May 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore haddii hogaamiyaasha ummadda iyo madaxdoodu ay isku qabtaan dan ummadeed oo ay ku kala aragti duwanaadaan waa wax laga garaabi karo tusaale ahaan haddii ay qasnada dawladdu ku jirta 1 milyan oo mid yiraahdo caafimaadka ayaan gelinaynaa midna yiraahdo nabadgelyada ayaan ku xoojinaynaa dhinacay doonta ha u dhacday waa arin wanaagsan oo muujinaysa in labadooduba ay ku baraarugsan yihiin baahiyaha jira laakiin sida Siciid Dani iyo Karaash khilaafkooda uu ka muuqdo waa dan shakhsi iyo waliba xubno fara ku tiris ah markii ay ragii dhamma ee aayaha ummadda dhan ka talinayay isku qabsadaan wiilkan ayaa keensaday ee ay dastuur iyo danguud midna u tanaasuli waayeen waxay muujinaysaa habacsanaantooda waayo waxa ay noqdeen laba qaareen oo u kala doodaya laba shakhsi madaxda aragtida fog lehna waxa iskuma qabsan karaan iyagoo muddo yar xilka hayayna waa ku caabiye waliba hanjabin shacab iyadoo 40 maalmood gudahooda gudoomiyaashii Nugaal iyo Mudug cad ugu dilayna waa qoos bulsho iyo waliba fursad la siiyay kuwa u midaysan in ay labadooda xataa nafta ka jaraan ee aani u midaysnayn ka hortagooda Soomaalidu waxay tiraahdaa labadii xaqdarro ku heshiisa xaq kuma heshiyaani Dani iyo Karaash waxay u midoobeen markii hore in ay qaarijiyaan gudoomiyihii wakiilada ee ay duhur daaqada kala baxeen iyagii ayaa raba in ay iskula yimaadaan filim ay labadooduba garanayaan dhamaadkiisa Puntland male siyaasiyiin iyo axsaab mucaarad ah oo baahiya dhaliilaha xukuumadda waa wax la wada ogol yahay in ninkii uu lacag badani kursiga ku fadhiisto loo daayo inta uu wixiisa ka soo ceeshanayo amaba uu kaga dhisanayo jaranjaro uu federaalka ku hogaamiyo raggii Dani ka soo horeeyay waxa ay kaga duwanaayeen in nidaamka kabkabka ah sidiisa u kala dhaxlaan muddo xileedkooda kadib iyo in aan la iska horkeenin tunweynayaasha mid kasta garabsanaya beeshiisa uu furaha u hayo Dani wuxuu taagan yahay aniga meesha ka taliya amarkayga jira iyo sidaan doonaya soconaysa cidda aan rabaan keenaya taasina waa sax oo maadaama xilka laga gaday odayga in uu sidoo doono ka yeelo anigu wax u diidaya ma arko wixii laga gaday in lagu qabsadana waa lagaga qaldan yahay Karaashna waa uu saxan yahay wuxuuna taagan yahay war ma ihi madaxtooyada ku dhex yaala kusimahagi ayaan ahay oo qudhayda waa la i doortay maya xilkan waan kula iibsaday sidaada ayaan lacag ka bixiyay meesha waynu wada gadanay oo waan wada leenahay waxayga ii ogolow hadaad rabta iga badsay taasna kama gadna odayga oo wuxuu taagan yahay abadan xataa Facebook ma samaysan kartid markuu samaystayna waa ka laga xiray waxa gardar ah in la kala safta laba nin oo danahooda gaarka iyo waliba xulashadooda isku haysta ugu yaraan haddii uu jiri lahaa mid danteeda u doodaya waan raaci lahaa ima oga inaan noolahay oo aan dan leeyahay maxaantiisa ugu raaci labadiinuba sii daaya geesta kale tan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka dhawaajiyay arrin baryahan aad looga doodayay isagoo sheegay in ay ka go'an tahay qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda taasoo sheegay inuu isagu aad isugu xil saari doono wuxuu ra'iisul wasaare Khayre oo ka hadlayay kulan qadeed shalay dhex maray golaha wasiirada oo intaasi daba dhigay in xukuumaddu ay ka shaqeynayso hirgelinta hanaan doorasho oo ay ummaddu dhan u dhan tahay taasoo ka shaqeynayaan wixii maanta ka bilaama taasoo sheegay in ay muhiim u tahay in uu dalku yeesho xasilooni siyaasadeed si aan u ilaalino xasiloonida siyaasadda ee dalka oo aan qabanno doorasho xilligeeda qabsanta
waa sida qura ee aanu dhaxal uga tagi karno si ay u waaraan wixii aanu soo qabannay ayuu yidhi ra-iisul wasaare kheyre inay dalkan 4 sannadoodba doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo waa tan sharciyadanna siisay sidaasi daraaddeedna waan ilaalinaynaa nidaamka ayuu daba dhigay ra-iisul wasaaruhu waxaa jira warar suuqa dhex yaacaya oo sheegaya in xukuumadda federaalku ay ku tala jirto muddo kororsi halka ay kuwa kalena sheegayaan in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre ay isku khilaafsan yihiin arrintan oo madaxa xukuumadda kheyre uu doonayo in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo si kastaba waxaase waa been ayuu yidhi doodaha ugu badan ee soomaaliya iminka ka taagan ayaa ku wareegaalanaysa arrintan ku xidhiirsan doorashada madaxtinimada ee 2021 geesta kaleetana shiinaha iyo turkiga ayaa waxay hor taagan yihiin hindise uu turkigu wado oo ku saabsan in marin cusub laga furo dhinaca gobol dalcabyad ee waqooyi brasilia taasoo xumaynaysa xaaladda aadinimo ee dadka meeshaasi ku nool sida ay qortay anadul agency ila diblomaasiya ayaa sheegay in labada dalba ay hor taagan yihiin in albaabka cusub la furo si loo cusboonaysiiyo qaraar hore golaha ammaanka uga soo baxay 2014 kaasoo dib u egis u baahan bisha luuliya ee soo aadan dhammaadkii 2019 waxaa furnaa 4 albaab oo laga soo galayay Syria dhanka dalalka Turkiga Ciraaq iyo Jordan sida Bab al-Salam iyo waliba Bab al-Hawa oo Turkiga ah al-Yurubiya oo Ciraaq ah iyo waliba al-Ramta oo Jordan ah marinadan ayaa muhiim u ah nolosha malaayiin Siiriyaan ah oo kaalmooyin kala gadisan loo mariyo balse labada dalba ayaa soo jeediyay in la xiro labada albaab ee Jordan iyo Ciraaq oo ay ku tilmaameen kuwa aan wax ku lahayn Turkiga ayaa isagu waxa uu doonayaa in albaabada la furo mid shanaadna lagu daro si dadka qaxootiga ah loogu gurmado balse waxa aragtidaasi diidmo la hortaagan Shiinaha iyo Ruushka oo labadoodaba codka diidmada qayaxan ku leh golaha ammaanka iyagoo soo jeediyay in Syria oo idin laga galo 2 meelood oo dhanka Turkiga ah taasoo mid ay ku xiran tahay nolosha malaayiin ku tilmaamay maag oo qaramada midoobay ka tirsan danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Kali Craft ayaa isagu soo jeediyay in dib loo furo bargudubka dhanka Ciraaq waana aragti ay sidoo kale taageereen UK iyo waliba France yeelkadeeda danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay Vasil Nabisa ayaa ka jawaabay waqti ay isaga luminayaan furitaanka albaabadaasi labada dal ayaa aad u taageeraya kalitaliska Bashar al-Assad geesta kaleetana dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa dib u eegis ku sameynaya xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda Qatar qoraalkan oo lagu baahiyay wakaaladda wararka Qatar ee Q&A ayaa lagu sheegay in wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Qatar Sultan bin Said al-Muraqi oo talaadadii wicitaan telefoon ka helay wasiirka arrimaha dibadda iyo waliba iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad wicitaanka ayaa waxa diiradda lagu saaray dib u eegis lagu sameeyo wada shaqaynta labada dhinac iyo waliba danaha ay wadaagaan ayaa lagu yiri qoraalka oo aan bixin faahfaahin intaasi ka badan Qatar waa dowladda saaxiibka iyo xulafada koowaad la ah dowladda Soomaaliya waxaana la rumaysan yahay in ay ka dambeysay gacan weyn ay ku lahayd doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii dalal Sacuudiga uu hogaaminayo oo Carbeed ay xiriirka u jireen Qatar bartamihii 2017 dowladda Soomaaliya ayaa iska caabisay in ay u hoggaansato cadaadis lagu saarayay in ay qaadato talaabo noocaas ah oo ka dhana Qatar iyadoo sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay si kastaba go'aankaasi ayaa lagu macneeyay mid lagu taageerayay Qatar inkastoo dowladda Soomaaliya ay la safatay Qatar haddana Qatar ayaa inta badani lagu eedeeyay in aysan gacan weyn siinin Soomaaliya markii laga reebo taageerada shakhsiyaadka xukunka haya iyadoo oo tusaale loo soo qaato mashruucyada Turkigu ay ka fuliyaan Soomaaliya oo wax u dhow Qatar aysan sameeynin geesta kaleetana laba ka tirsan ciidanka militariga Kenya iyo sargaal booliis ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen iska horimaad ka dhacay deegaanka Buralasa ee ka tirsan gobolka Garissa George Sangola taliye hoosaadka booliiska ee deegaanka Faafi ayaa sheegay iska horimaadkaasi uu bilowday markii dagaalyahana hubeysan ay weerar soo qaadeen war qoraal oo ka soo baxay booliiska Kenya ayaa lagu sheegay in iska horimaadka ay qasaare ugu geysteen kooxdii arxanka dareed ee shabaabka ee weerarka soo qaaday ayna bacsadeen sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay baadigoobayaan xubno ka tirsan shabaab oo inta badan weerar ka fuliya magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya geesta kaleetana taliyaha guutada saddexaad qaybta 27aad Colonel Abshir Mahamoud
ayaa sheegay in ciidanka xoogga aysan wax lug ah ku lahayn dil 8 dhalinyaro ah loogu geystay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe. Korneyl Abshir Maxamuud ayaa tilmaamay inay aad uga xun yihiin dhacdadaasi lagu laayay dhaqaatiir iyo dad kale oo u adeegayay bulshada. Haatan waxaan ku jirnaa baaritaano ku aadan qaabkii loo soo qabanqaabiyay raggii ka dambeeyay dhacdadaasi si cadaaladda loo horkeeno, ayuu intaasi ku darnay Korneyl Abshir. Waxa uu xusay in ciidanka xoogga dalka loo tababaray badbaadinta dhiigga iyo hantida ummadda aysan ka suurtagelinin intaas beddelkeeda laayaan shacabkooda. Waxa uuna tilmaamay in laga yaabo falkan in ay geysteen gacmo kale si loo suurad xumeeyo ciidamada xoogga dalka. Geesta kaleetana waxaa la filayaa in deegaanka Gololey laga bilaabo baaritaan ku aadan ciddii ka dambeysay dil weeraraadkii halkaasi loo geystay 8 ruux oo u badan dhalinyaro ka howlgalaysay xarun caafimaad oo ay ku leedahay hay'adda Zamzam. Sida ay wararka sheegayaan, waxaa xalay degmada Balcad ku hoyday mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo saraakiil ka tirsan waaxda baarista dambiyada si ay baaritaano dhab ah ugu sameeyaan sida dhacdadaasi ay u dhacday iyo ciddii ka dambeysay. Ehelka dadka la dilay ayaa dhanka kale dalbaday in ay cadaalad u helaan caruurtooda dilwadareedka loo geystay, iyadoo ay ku howlan yihiin samafalka dadka deegaanka sida ay hadalka ay u dhigeen. Meydadka 8 qof ayaa la keenay magaalada Muqdisho iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin ciddii ka dambeysay dilka dhalinyaradan. Hase ahaatee, nabadoon Muxidiin Xasan Afrax ayaa hore u sheegay in dadkii ka dambeeyay qabashada dilkan ay ka mid ahaan karaan kooxda arxanka daran ee shabaab. Geesta kaleetana askarigii Minneapolis ee jilib uu qoorta ka saaray ku qaarijiyay dhibane George Floyd ayaa la sheegay inuu horey u dilay gaaray nin kale oo madow ah 12 sannadood ka hor. Xaaladda cabsida leh ee muujinaysa in Derek Chauvin uu awood dheeraad ah weligii adeegsan jiray ayaa dusha sare soo martay xilligii geerida George Floyd oo rabshado ka oogtay gudaha Mareykanka kadib markii dunida oo idin laga daawaday Chauvin oo qoorta uga fadhiya Floyd oo ku cataabaya ma neefsan karo, halkan ayaan ku dhiman karaa. Ira Lateral Tolles ayaa haatan sheeko kale soo bandhigay isagoo sheegay in Chauvin uu gurigooda soo galay isagoo ku dhex garaacay musqusha kor inta aanu 2 xabo oo afsaar ah ku dhufan mar uu ka jawaabay dagaal qoys ah 2018. Tolles 33 jir ah ayaa u sheegay Daily Beast in uusan markii hore Chauvin aqoonsan, balse uu markii dambe gartay wajigiisa markii la soo bandhigay sawiradiisa isagoo ka mid ah 4 sargaal oo loo haysta dilka Floyd. Askariga ninka dilay malaha waa midkii ay toogtay ayuu Tolles fariin ugu qoray walaashii, waa isagii ayay markiiba ku soo jawaabtay walaashii. Ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo looga gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada. Waxa uu amarkani siinaya hay'adaha fuliya sharci in tallaabo sharci ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter-ka. Madaxweyne Trump ayaa markii uu saxiixay amarkan ku eedeeyay shirkadaha baraha bulshada inay yihiin awoodo aan lala xisaabtamin. Amarkan cusub ee madaxweynuhu saxiixay ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo caqabado dhanka sharciga ah. Khubarada dhanka sharciga ayaa waxa ay sheegeen in isbeddelka uu ku sameeyo xeerkan ay ahayd in ay ku lug yeeshaan aqalka Koongareeska ama maxkamadaha dalkaasi. Mr. Trump ayaa si joogto ah ugu eedeynayay shirkadaha baraha bulshada in ay faafreef ku sameeyaan codadkooda iyo weliba fikradaha asliga ah, waxaana shirkadda Twitter-ka ee iskale uu ku eedeeyay in ay faragelin ku sameynayso doorashada kadib markii ay shirkadda dul saartay qoraal uu soo dhigay in xaqiiqdiisa la iska hubiyo. Shirkadda Twitter-ka ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in la iska hubiyo xaqiiqooyinka ku saabsan cudurka corona kadib qoraal uu bartaasi soo dhigay afhayeenka dowladda Shiinaha oo sheegay in asal ahaan uu corona ka yimid dalka Mareykanka. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. Intii aynu ka gaarina warkayaga xiga waxaan kaga tegaynaa guriga gobonimo.